runtii maanta mucjiza meeshaan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxaa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta ah masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed aa baafin ku samaynaysay runtii gabadhiya waxaa lagu arkay saakii digsi weyn oo dugsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kala kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka korayso cidda subaxdii hore waxay dhahayeen doolimaa guriga ku dhintay wax sacmal laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo go'go'day oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxaa ka mid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da imaaday ma gowracnayn gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacaya loo malaynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabbihi ka maqnaay guriga cilla ahay laba wiil oo qaraabal ahna ay joogtay oo qaangaara ah marka iskuulka markay ka imaaday in dhib loo geystay wasas camal laga shakisan yahay kadibna uu dil saas loogu sameeyay xarigay laakiin ku cijisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aab lagu xirayba marka waxaa la yaab leh faamilka qolkan ma isticmaalayeen mase wuu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyey ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabe ah hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiilal qaraabe ah abti ma u yahay mase adeer u yahay wiilal saas camal joogeen wiil ka mid ah hadda iskuul jira wiil ka mid ah nala jooga oo xoogaa dhagaha ka culus dhammaantood saldhigan geed doonnaa meydka CID-da la geynaa waxaa la baaraa gabadhan qaabka u dhimatay